سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم في كل خير وأسأل الله العظيم الذي بنعمته تتم الصالحات أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا أجمعين وأن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا ذا الجلال والإكرام. إلهي وحن ويديساننا أخوابك إنه ناشبه أبارهنا وإنقصاره إلهي بقى عنتي سلقود درقا سبحانه وتعالى إساقا خزائن السماوات يدولك بهيا إلهي سبحانه وتعالى إنه نحرسته رابكنا الله ناشبه وحي بكنا إلهي هعافي سبحانه وتعالى. waxaa aanu ducaynaynaa laba waalid oo inaga dalbaynay inuu ducayno in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wanaagga uu isugu keenay ilaahay u ziyaadiyo una daa'imiyo ilaa inta ilaahay kala kulmayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kuma aha isaga ayaa quluubta isku sakhira ilaahay isku sakhira lena. walaalayaal sidaynu wada ogsoonahay wax kasta nicmo kasta oo aynu ku nicmaysanayno ama aynu haysano ilaahay xaqiisa inooga timid subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa bikum min nicmatin famin allah wamaa bikum min nicmatin famin allah. xallo wixii idinku sugan oo nicmo ah ilaahay xaqiisa ka timid subxaanahu wa tacaala. ilaahay isaga ayaa adoomihiisa u qadara oo siiya cidii markaa mutaysanaysa. nin walbana intuu adduunka ku nool yahay wadaduu ilaahay u jeexay subxaanahu wa tacaala uunbuu marinaya ee tuu isagu jeexday ama uu jecel yahay ma marayo. walidaalika baa rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay inaynu barrintoole ilaahay arkayno subxaanahu wa tacaala. rabbigeen baynu arkaynaa sida aynu u arkayno cadceedda iyadoo aan daruur lahayn, sidaynu arkayno dayaxa markuu 15aad yahay ama uu 14aad yahay wax daruurina aanay saarnayn. markaasaa rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ilaahay ku odhanayaa addoonkii buu ilaahay la kulmay subxaanahu wa tacaala. markaasuu ku odhanayaa ilaahay jalla jalaaluhu isagoo addoonka la hadlaya أي فل يا فلان وي هبلو ألم أكرمك ميانا كرامي ميانا كرامي شرفك ويالين أيو إلهي كورنا يا سبحانه وتعالى. وأسويدك ميانا مضح كادقين كرامة حق إلهي بكاقاي من تاد كرامة لذا هاي وبرشدة دحية تاد كرامة كل هذا هاي هداد مضح تهاي أو وحمامشو حق إلهي بكاقاتي من سبحانه وتعالى. waxaa ku jirtay alam ukrimka wa usawidka wa uzawijka miyaanan anigu kuu guurin wa usakhir laka alkhayla walibil wa adaraka tar'asu wa tarbac miyaanan kuu sakhirin fardaha iyo geela oo aanan kaa tegin adiga oo madaxa waxaa doontana samaynaya oo xukumaya waxaa doonto intaaba miyaanan kuu samayn. markaasuu odhanayaa addoonkii haa rabba waad ii samaysay ilaahow intaaba waad isiisoo odhanaya. marka waxaad dareemaysaa wax kastood maanta haysata ilaahay baa ku siiya subxaanahu wa tacaala. haddaad madax tahay, haddaad hani hodan tahay, haddaad islaan leedahay, haddaad islaamo badan leedahay, haddaad ubad leedahay, haddaanad waxba lahayn intuba xagga ilaahay bay subxaanahu wa tacaala ka timaada. addoonka marka waxaa laga rabaa inuu ku fikiro oo ilaahay uga mahad celiyo subxaanahu wa tacaala si uu uga badbaado baritoole arrintan iyada ah. fayaquulu markaasuu rabbi odhanaya afadananta annaka mulaaqi ma u malaysay inaad ila kulmayso. waa addoonkii kaafirka ah. fayaquulu laa wuxuu odhanayaa maya. fayaquulu markaasuu ilaahay odhanayaa فإني أنساك كما نسيتني أنا قم أنت وأن كاتجيا سيداد يجتكتي شلي طوله
adduunkii anigoo waxaan soo dhanba kugu siiyay si aad iiga tagtay anigoo dariiqayga iyo wadadeeda u ilowday ayaan anna maanta ku iloobaya saasaa jahannamo lagu geynayaa walciyaadu billaah waxaynu gogoldhig uga dhigaynaa xadiidkaasi inaynu isdareensiino addoonku wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku galadaystay inay tahay wax ilaahay jalla jalaaluhu uu u qadaray subxaanahu wa tacaala haddaan u soo laabto mowduuceen in badan waxaynu soo wadnay guurka iyo arrimaha qoyska innaga oo carabka ku soo celcelinaynay haddii qoysku wanaagsanaado bulshadaa wanaagsanaanaysa bulshadu hadday wanaagsanaatana dee waddanka inoo fiicnaanaya ilaahayna taasaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacala oon ka baryaynaa mar walba inuu waddan kale inoo hagaajiyo bulshada uu ilaahay inoo hagaajiyo qoysaska ilaahay uu inoo hagaajiyo subxaana wa tacaala marka wixii xuquuq la lahaa iyo sida loo baahan yahay in lagu maamulo qoyska iyo sida mashaakisha loo xalliyo waxaasoo dhan aynu soo qaadanay kadib su-aal baa inoogu dambaysan isweydiinay goormaa islaan labaad la guursadaa bay ahayd haddaan soo duuduubo sababaha aan taa uga hadlayo laba un baan ku soo koobaya waa marka koowaade waa xadiidu rijaal fi lmajaalisi walmasaajidi walaswaaqi wa fi kulli makaani yaltaquuna fiih waa warka ragga ama masaajida ku jiraan ama suuqaa joogaan ama meel ha ka buraynayaan oo shaaha ka cabayaan warka laga sheekaynaya waxa weeye war hebelow maad labaysay horta mise waad saddexaysay mise waad ku fikiraysaa xadiidu rijaal wey taas waa qadiyadda koowaad qadiyadda labaad waxa weeye ana alinsaan yani alrajul azawj ninka odayga ah marka islaanta koowaad ee uu qabaa ay mashaakil ku furto oo ay markaasi sidii uu isagu u baahnaa ay u socon weydo oo aad loo kariyo ayaa wuxuu ku fikiraayo u badan waxay tahay mid labaad ood ku madax jabiso aad guursatid haddii uu cid la tashadana waxay tashiga ku siinayaan ugu horreysa waxay tahay war dumarku way badan yihiin mar hadday tani ku kadeeday mid kale iska guurso waad fahamtay soo ma labada arrimood darteed aan u keenay inaan ka warranno insha allahu tacaala goormuu ninku islaan labaad guursanaya waxay taasi keenaysaa marka koowaadba bal inaynu eegno islaamku siduu u arkaa inuu ninku islaan labaad guursado ama tu saddexaad ama tu afraad waxse shuruuda oo islaamku u dhigay ma jirtaa mise way iska furan taho kullu man habba wadab yatazawaj wa yucaddid mid kasta oo ku fikira buu guursan karaa oo una markaasi uu badin karaa innaga ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaab buu inoo soo dejay rasuul buu inoo soo diray kitaabkaasi iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaynu waddada ku bildhaansanaynaa adduunka intaynu noolnahay aakhirana labadaas sababtooda ayaynu jannada ku galaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sharciyeeyo oo inoo jideeyo waa wax khayr ku jiro ilaahay baa markuu kitaabkiisa ka warramay wuxuu lahaa alif laam miim ذلك الكتاب لا ريب فيه كل ما جاء في القرآن الكريم من أمر ونهي وخبر لا ريب فيه وحكستو إلهي كتاب القرآن كأبو شيغي وحو إنا أمر يوحو إنو ديد يوحو كورم ربي سبحانه وتعالى صدح لاس وياني خير أمبا كجرة مركا إنو شرعيغا inuu qofku fahmo ayaa marka hore loo baahan yahay wuxuu alla sharciyo waa khayr laakiin waxa dhici karta dadka wuxuu alla jideeyay ku dhaqmay mararka qaar kood inay sharcigii ilaahay u jideeyay subhanahu wa ta'ala dadka ay nacsiyaan marka ta'addudkuna waa baab mu'addidkuna waa baab kale ninkan isagu guursanayna waa baab kale in markaasi tiro la guursado islaamku xadidena waa baab weeyaan marka inaad guursato islaan labaad iyo tu saddexaad iyo tu afraad ilaahay wuu baneeyay marka adigu waxaad u arkaysaa tacadudka islaamka dhexdiisa wax banaan baad u arkaysaa tayib waxaad u arkaysaa inay banaan tahay laakiin ninkan isagu wax guursaday hadduu wax kharibo
oo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay in loo socdo marka tacadudka la sameeyo uu socon waayo ma waxaad oranaysaa tacadudka ayaan banaanayn ma saasa la oranaya meel lama oranayo waxa la oranaya ninkana wax kharibay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka koowaad ikhwaani fillah abaaha at-ta'addud fi al-islam midda kale at-ta'addud lam yakun ma'a bidayat al-islam bal kana mawjudan qabla al-islam ta'addudku islaamka lamu bilaabmin sida ay gaalada iyo kuwa munaafiqiinta u dhigaan islaamka ka horba ta'addudku uu jiro nabi Suleymaan alayhi salaam 9 dumara ayuu qabay 9 ayuu qabay rasuulkeena Muhammad alayhi salatu wassalaam markuu yimid ta'addudkii waa uu xadiday rag waxa jira muslimiin saxaaba ahaayo markay soo islaameen soo muslimay iyaga oo tiro dumar oo 4 ka badan qaba rasuulkuna 4 buu ku soo celiyay sallallahu alayhi wa alihi wasallam umdada iyo asalka ta'addudka inuu banaan yahay inoo sheegayana ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala fi surati an-nisa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum lakin awalan inta horaba u fiirso haddaad ka baqataan inaad u cadaalad sameyn weydaan agoonta dumarka agoonteed haysataan oo waxa jirtay sida ay sheegayso umuna Aisha gabdha agoona ayaa ninku uu gacanta ku haynay markaas uu hadana iyadoo marka maal bay leedahay maalba malaha wuxuuna diidan yahay inay cid kale u tagto markaas uu markuu guursado hadana sidii uu islaamaha caadiga ula dhaqmay ula mu dhaqmi jirin meherkeega ayuu markaas ka nusqaamin jiray man istataa'a minkum alba'ata falyatazawwaj ninka baa'ada karay baa'aduna waa inuu islaan maamulo wax siiyo meel dajiyo xaafad buu ka keenayaa uu isagu markaa noqdo kii ka mas'uulka ahaa ee dharkeega cuntadeeda wax kasta u baahan tahay siinay ninka ka kara ayaa horta guursanaya waa ninka dhalinyarta bilow ahaan markaan ka warramayo ninka mucaddidka ana uu ka sii xaq jiraayo shardi kale oo khatar ah u yimid shardiga kale bal aayada inuu fiirsano إلهي وحده سبحانه وتعالى فإن خفتم هداد كبقتان ألا تعدلوا هوانك أدسكو كان سنو عدالة سمين ويدان إن أدمد والبحق يقسين ويدان هداد كبقتان فواحدة فاكتفوا بواحدة إسلام كلية قرصة بس متكلية كوفي لأنك قرصة شرطك كعلنية فإن خفتم هداد كبقتان ألا تعدلوا إن عدالة سمين ويدان أو هوين كاسي أدو عدالة سمين ويدان حقا ماشا أدجسان درك أدسين إيسان بيلك أدسين إيسان هو يشد أدو هو ينيسان انت بهداد كبقان إيسان إنو مالون أدو الله يحان إيسان سيدا أميكا أبادان إن بادرك حاصلة مركاسات أوران إيسان ورهبل محاكو عليك habeeradan xaggan u baatay midii baa igu kulaato halkan iska galaa buu leeyahay hada laysa fi min al-adalati fi shay taasi cadaalada waxa la waxay kaga jirtaa ma laha yaraatay ninka noocaasi ihna rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay inuu bari toola imanayo isaga oo labadiisa dhinac dhulka ku haraya wara fadeexada u taala ninka islaan labaad ama saddexaad qaba oo aanu cadaalad sameeyay إلهي هو سهل مركز ضدك إسلامها طبعا الله سهل آمين ده من كستو موحدة وإسلام كليه قبوا حلا جرب الدعاء آمين تإنه السر بويله هذا إلهي هو سهله لمن كحاسس كلا الله هو سهل عدالة آمين ده الله هو سهله شرط ديك كوات ما هي نية هو إسكت جورسا معها يعني مدير أنتو كتشكيليو أو كويل هذا مركزي ورمد لبعض بل إسكت جورسا ده على مدى حوجلنا هوش عسيلة ده هاي نفتادنا واد أختهي هدارد عدالة سمينين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اكتفي بواحدة متكل يكو كافتون متكل يكو سجنو مركا كواد وشيء نتعدد كينو بنايه ننكي عدالة سمينية إنو عدالة سمينية نفتي سكو أو كرتي أولى إنو عدالة سمينية كان وحلانا هدي أضبهاته إنه واحد عايزين عدالة سمي لكن أنا بهنين متكلي يسكت جورس مركا
haddaanad u baahnay marka aan waxaan ku celcelinaynaa alcadaala wahiya icطaa'u kulli dii xaqin xaqahu qof kasta oo xaqlood xaqiisa si wey weliba haweenka aad qabto waxaa la rabaa inaad biilkooga ugu cadaalad samayso inaad meeshay degayaan u cadaalad samayso inaad baryada iyo habeen dhaxa aad u cadaalad samayso oo midna aanad laba habeen intaad la gasho midda kalena aanad habeen la gelin iyadoo ku fasaxda mooyaane halkaana fasixitaanka haweenku maba suurtogalaysa inay ku fasaxdo marka ama ha kuu bugto ama ha kuu xanuunsanayso ama caafimaad ha kuu qabto marba haddaad islaan labaad keentay islaantii koowaad maaha macnaheegu ka dulguur sida ninba wuxuu ka warramayay moogtahay tacadudkuu ka warramayay siduu uga warramay waxay tahay wuxuu yidhi islaanta koowaad ninka qabaa wuxuu ka dhigan yahay nin combyuutar bantiamwana ku shaqaysanaya combyuutar bantiamwana mucaalajkiisa processorkiisa bantiamwana buu yidhi haddana waxa socda core i3 core i7 marka wuxuu leeyahay waxa barnaamij cusub ba markay barnaamijta cusub timaado ma suurtagelaysa computerkii bantiamon aha inuu ku shaqeeyo anagu sida hadalka u dhigmayno islaanta koowaad karaamay leedahay sharaf bay leedahay waa islaantii marka koowaad ba xayaatada kula soo qaybsatay hadii aad aragtay inaanay baahideeda gudayn adigoon dulmiyayn oo aad karaysa inaad waliba cadaalad sameynayso mid kale way ku banaan tahay inaad guursataa haddaad ka baqata cadaalad xumana ha guursan warkaasi waa war cad weeyaan ma aniga idhi maya ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan haddaad ka baqataan in cadaalad markaasi sameyn weydaan mid kaliya faktafu biwahida aw ma malakat aymanukum taasina ma jirto ama waxay gacmihiinu mulkiyeen oo adoomihii waaga jiray baa laga hadlayaa taasina ma jirto soo maaha inaad mid kaliya ku kaaftoonto dalika adna alla ta'ulu taasana ugu dhowbu ilaahay subhanahu wa ta'ala inaydan leexan waate an taktafiya biwahida inaad mid kaliya ku kaaftoonto من الذي يخاف على نفسه الجور والظلم ومدك نفتي سوغا بقنيا عدالة حمده هي ظلمك وحانا دوغاتا رسول كينا محمد عليه الصلاة والسلام وحيدي الدون مجرى إلهي وحضر سنة سبحانه وتعالى oo dhimanaya adoonkaasi maalinkuu dhimanayo isaga oo dadkii uu mas'uulka ka ahaa dulmiyay ama khiyaamay ma jiro ilaa haduu jiro إلهي سبحانه وتعالى كجنة كحرمي إلهي سبحانه وتعالى جنة أيو كحرمي وحنا كوفلا هديئات عدالة حما كدغض وحا كوفلا إن على مدى ضدك أردني أي وضع أركيان بريتو لإن لو قصة صار ماشي عبسبة تالية الذي يفكر في التعدد هناك خوف شديد عبسبة ضمبة علامته maxay tahay halkay dadku ka soo baxayaan iyagoo iska wada caafaan qaba tabcan waad garanaysaano de nin kasta dambigiisa ilaahay ku qaadaya subhanahu wa ta'ala kuwa ribada cuna iyaga oo waxay soo baxayaan aad moodo kuwa markaasi sakhraamiina oo dhacdhacaya ay soo baxayaan qaar waxa la soo saaraya iyagoo wajiga ku socda ninka laba xaasle ee mid u leexda ee xaqi ilaahay uu saaray si waayana wuxuu soo baxaya isagoo dhinac dhulka ku jiidaya marka hadaad cabsidaas oo dhan baa taala hadii aad naftaada uga baqanayso waad isgaranaysaa cadaalad xumeynad ku dhacdo hadaad uga baqanayso iktafi biwahida wala yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha ayad kale ilaahay wuxuu sheegay subhanahu wa ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum fala tamilu kull al-mayl فتذروها كالمعلقة آيات داسي عدالة ماشا لغو شاقيو إيا عدالة دينا هورتا ويكالا دوانتاهي دادك قار واحد جرى تعدد كسو هرجيدا إلهي بنيه سبحانه وتعالى داد واحد جرى كسو هرجيدا إلى هذا وحاسي وح معقولة ماها قبر باكراميدا لغو عيارية إلى آخر ذلك مركاسي لبضان آيات اسكو قراعان ما دامو هل كان إلهي سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هداد كبقتان إن عدالة سمي وإذا متكل يكو كافتو ما هلكو أنا كان إلهي كيري وحا عديين أنا عدالة بلا سمين بيورنا يانو آيات داري كان يانو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بليه
إلهي بوحدي مرنا بكرم ميسان هوان كينا ذو عدالة سميسان أبدا داشاني وحلنا هي العدالة في هذه الآية تعني عدالة آية لو شيء وحويا ما في القلب وحي قلبك كسغا من محبة وود وحي قلبك إلهي دحدق وي تانا رسول كان محمد عليه الصلاة والسلام مركو قسمدي عادقة هيدو كبحو إلى هذا أو مركا أمد والبسي حقيقة وحو رنجري إلهو وطا أنيقا قيبتي وحي آن ملكسنا هبان دحر رسولك واسميي وحو صينا ينا واسميي مركا سوء رنجري وطا إلهو أنيقو وحان كري هايقبا وحانا كرين oo adigu aad haysato waa maxay waa qalbiga waxa dhici karta ninka laba islaamood leh ama saddex inuu mid jeclaado miya la oranayaa jacaylka ku sin ma yade qalbiga taasi qalbiga ku xiran tahay waxaad ku simaysaa gabdhahaaga iyo islaamahaaga waxaad ku simaysaa waa ficilka iyo qowlka tan hadaad hadal fiican ku tiraado iyadana ku dheh tanaad ku tiriya xabiibati tan ku dhaya xabiibati لكن هذا تنا كتر يا حبيبي تنا نابل كالده دي عدالة ما هتاسي تنا أقص ليس مركاتي ما ده تنا وجهك عبوس كده جساد أوريسا لا ما بحنا سنا هذا قد بنتي كجرا مويا هذا بنتي كجرا يضو باب كله عدالة ده ماشى لقى هذا اللي كرين إنكوا أنو كرين وعدالة ده قلبك ومحبة يكالجعلك تنا وحكو حرن هوينك ويانو ده هوينكو سيدا يأكل حريف سيهم با أي نك أكل هنتيان حاجة قلبك مد مر الله مركز تكتبع مركز سيادي أبي سلبس كي يتزين كيجا مدنا وحوي أن تسوي كم غنتهاي مركز معها تن ما أنت إسكوك يقر حسام بيل كأوبدنا يا تن وانكو يرينا يتسعد على الحمويان لكن تنينا جعلاته إلهي با سبحانه وتعالى قلبك هيا قلبك إلهي با هيا توات جعلان كرتا توات كجعلان كرتا إن أدلو فهمان مالينيا مركا دمر كرياني مركا خلط فهمي ما أنتيان بلابي أرمها قيسك أي غريرة هذين قورن بو واشا شيخ حسنا مركا واحد دعي كرتا تعدد كرمان تانكو ورمينو إن لا يراهدو إن سكر إنت لا ترجمة لا يراهدو رقيبو ليه هي وذا قرسده وحلانا هي تعدد وحبرنا ويا نكا قرسنا ينوانيكي وانك لغا هلا عدالة نك لغا هلا كرتي iyo wuxuu ku nafaqeeyo inta ninka laga waayo waxaan leenahay war ha guursanina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun